gurigan oo goor dhaweyd ku gubtay xaafadda Cuqubo ee magaalada Burco oo gabi ahaanba shufbeelay ayaa waxa ku dhintay inan yar oo jirtay 8 bilood waxaana gubay gurigani korontadii gurigaas ku xidhnayd waxaana gabi ahaanba soo gaadhin damdamis iyo waliba wax gurmada dadkii gacmahooda ku baqtiyay gurigaasi ee goobjoog ahaa ayaa ka warbixiyay siduu u gubtay gurigani guri kaliya noo dhaxeeya isla markiiba waanime marka guriga oo qiiq ku xidhan yahay waanu gali kari weynay dhibaato badan baa ka dhacday meesha wax dabdamis oo nooyay ma jiraan wax dawlad ah oo nooyay ma jiraan xataa xeerada madaafiicda nagu dhow idin ma iman marka de kulay xaafadan aad ay ugu dayacantahay xagga leerka kulay waxaan u maleynaynaa anagu ma xaqiijin karna wax gubay laakiin short baa ku baxay dadka badankiisu leeyihiin gudahana waanu galay marka adigu ilmaha yar baan ku xarbiyeynay meesha ku gubtay aakhirkii waanu ka soo saarno de anigu raggii gudaha galay ka soo saaray baan kamid ahaa marka wallahi dabkuna aad iyo aad buu noogu waxaysan yahay oo aad buu laba qarxayay dabkuna waxa weeye wuu ku dayacan yahay xaafadda ma laha daryeel ilmihii yaraa weli wuu yaalaa de xaafadda naga soo horjeedo yaalaa gurigan u yaalaa ma garatay marka weli meedkii halkan u yaalaa de oo gubtay oo de aad moodad de magaranaysa aad iyo aad u hurunshooday marka waxa weeye de weli wax gurmadaha noo yimi ma jiraan oo aanu dawladda ka helay xiriir dawladda dhamina way nagu wada dhow yihiin dabdamis maanan helin de wax gurmada booyada biyo loo shubi jirto maan hela anigu runtii waxaan ahaa dadkii ugu soo horeeyay halka aniga xaafadda ka soo baxay waxa ka soo baxay meesha dab ayaa ka soo baxay inan baa ka soo baxday kadib inantii markay ka soo baxday waxay tiri ilmo yar baa guriga ku jira waan u daba maray dabkii baanu gali kari weynay qolka iyo daaqada iyo albaabka intaba holac baa ka soo baxay kadibna markii aan gali kari weynay oo aanu ka soo baxnay xaafaddu ma iman wax dabdamisa ma iman wax booyada ma iman wax gurmad degdega ma iman wax markaa si degdega u caawiya haddii ay jiraan wax dad markaa qofka badbaadin kar lahaa oo ama ay jiraan booyada ama ay jiraan dabdamis waa ay iman lahaayeen dhibaatadana dad baa ku gubtay waa guriga afraad ee ku gubtay meesha waxa weeyaan xaafaddu waa xaafad aad u goodoona wadala'aan ayaa haysa booyadihii iyo dabdamiskii meelay noo samarana way waayeen dabadeetana waxa weeye waxaanu ka codsanaynaa dawladda in dawladdu gurmad degdeg ah ay noo soo fidiso oo wadooyinka noo samayso halkaana dhalaankii ku gubtay oo ka dhacda xaafadda hore guryuhun baa guban jiray laakiin maanta geeri baa dhacday geeridaa dhacdayna amarka ilaahayna waa ku jira dayacna waanu tirsanayna haddii aanu xaafadda nahay waxa weeye guri kasta oo gubta shoor baa guba sida jirta waxa kaloo dhibaato oona haysata meel dandabis loo soo dariiq oo dhan baa naga xidhan waxa sababay shoor baa ku kacay guriga kadib shoorkii ku kacay kadibna ilmo yar ayaa sariir saarna hooyadii dhashay markaa way ka yara maqnayd markay ka yara maqnayd waxay ku maqnayd xaafadaha adeeg ayay doonatay inan ayaa joogtay runtii ay family isu yihiin mahad cali goodir TV-ga caalamiga Star Burco.